Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dadka Soomaaliyeed ay xilligan doonayaan doorasho xilli weli aan wax heshiis ah laga gaarin nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhacaysa. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayaa waxaa loogu baaqay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug inaysan ka bixin Muqdisho inta laga heshiinayo nooca doorasho ee Soomaaliya. Sidoo kale safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in shirka oo guuldareysta aysan ka mid ahayn doodaha xilli maalinta beritaha la filayo in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka. Warkan ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maanta beesha caalamka ay ku baaqday in hogaamiyaasha Soomaalida looga baahan yahay inay ka heshiiyaan nooca doorasho ee la filayo inay dalka ka dhacdo sanadka 2020 iyo 2021 ee aan hadda ku jirno. Haddaba daawade, maxay kula tahay nooca doorasho ee la filayo in Soomaaliya ay ka dhacdo? Aragtidaada qaybta hoose ee comment-na la wadaag. Waa mahadsantihiin daawadayaal.